inkastoo baryihii horeeto liigu canaananaayay liigu caaynaayay waxaan maxaa Soomaaliya u siinaysaa waxaan ma dibadda geysid anigana higsigayga wuxuu ahaa waxaan annaga inaan cunno oo barano waaye marka sidaas oo kambanigayga ku bilaawday shaqadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Xirsiye Cabdulla Siyaad waxaan ahay milkiilaha kambaniga Some Fresh Fruit and Vegetable waxaan deganahay Soomaaliya waa Somali Fresh marka alxamdulillah kambanigan waxaan ka soo aasay heer aad u hooseeyo sida ma aragtay family dhaxdiisa ilmahayga xanaaneyntooda uu ka dhax abuurmay ganacsigayga marka inta badan aniga dadka oo dibadda aaday ma ihi marka waxaan dad dibadaha markii laga soo noqday ayaan waxaan helay dad family ah oo dibadaha ka soo noqdeen markay arkeen adiga mooska aniga aan guriga ku ilmaha siisanayo iyo mooska magaalada ee ayaga ka soo cuneen markay isbarbar dhigeen waxay ugu dhaliyeen mooskan inuu yahay mooska dibadaha laga cuno waxay ugu dhaliyeen mooskan inaan ka sameeyo ganacsi business aan ka sameeyo adiga 2005 ahayd ilaa 2012 waa u tabaabashaysanaaye shaqadiisa rasmiga 2012 ayaan u helay dhul uu leeyahay macna aniga aan leeyahay inaan ka aaso waa dhulka hadda kambaniga uu degan yahay markaas waxaan ku bilaabay marka inaan suuqyada geeyo niyadana la ii dhiso wixii wax loo baahan yahay oo qurux badan inkastoo baryihii horeeto liigu canaananaayay liigu caaynaayay waxaan maxaa Soomaaliya u siinaysaa waxaan ma dibadda geysid anigana higsigayga wuxuu ahaa waxaan annaga inaan cunno oo barano waaye marka sidaas oo kambanigayga ku bilaawday shaqadiisa mooska markii aniga aan shaqadiisa bilaabay waxaan ka soo qaadanay beero islaameed waxaan ku bilaabay wax yar sanadka ka dambeysay laakiin waa sii soconaa wax yar waxaan ka wadaa halkii tan ayaan waxaan u qaybinayay saddex maalin aan halkii tan bixinayay laba maalin aan ka dhigay tankii inaan bixiyo suuqa sida uu rabo anigoo Faadimo Cabdullaahi liidho macallin liidho waxaan ka shaqeynaa mooskan ilmaan ka biilanaa qutulyoon ka raadsanaa ima ilaahay kuma darnaade waan dhaqnaa waan nadiifinaa waan xareynaa waan hagaajinaa qutulyoon ka raadsanaa ilmahan ku biilanaa magacayga waxaa la yiraahdaa Ayaan Yuusuf Hilaaca waxaan u shaqeeyaa shaqadan oo kambaniga ah ha ahaato mooskanan dhaqnaa waan hagaajinaa wasaqdan ka ilaalinaa waa ka shaqeynaa qutulyoonkan inaan ka raadsanaa barkad baa la gelinaa waa laga bixinaa mid kale la gelinaa waa la bixinaa waa la hagaajinaa waa la xareynaa kulli joornaatiga inaan ka raadsanaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Muumin mooska shirkadda Some Fresh oo shaqeynaa mooska waxa laga soo qaadaa afguya laga soo qaadaa waxa uu keenayaa laba waaye mooska waa la soo qaadaa waxa la keenaa meel wadada meel jidka xiran tahay la keenaa waa la soo labaraa waa la keenaa waa la dhaqaa waa la meesi daawada waxa la gelinaa black labaad oo jeermiska la gelinaa tan kale la gelinaa daawayna waa la nadiifinaa waa la xareynaa kiifkiisa loo shidaa waxaan u iibgeynaa magaalada subaxdii hore baabuur qaadana sida wada aragteen shaqaalaha way imaanayaan baabuurta ay saarayaan baabuurta markay saarana magaalada ay u iibgeynayaan baabuurta naftigeeda inta la saarayo waa wax xisaaban way soo iibinayaan dadka macaamiisha customerka ay ka soo iibinayaan ka bacdina way soo celinayaan waa la xisaabina wixii markii hore qaadeen iyo wax hadda ay qaadeen dabcan wax jangoon awil markii hore qaadeen wax jangoon ay hayeen tusaale oo kale cadad ahaan 5,000 4,000 markay soo celinayaan lacagtii 5,000 bedelkeeda ayay keenayaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Biinde runtii kambanigan mooska aad iyo aad ayaan ugu riyaaqnay sababtoo ah mooskan waxaan isticmaali jirnay xilligii berisamaadka ahaa Somali Fruit ayaan ka heli jirnay mooska laakiin maadaama dagaal uu dhacay kadib waxaan helnay shirkad noo keentay mooski oo halkan noogu farsamaysa runtii mooski aad iyo aad ayaan u jeclaanay haddana waxaan macmiil aan la yeeshtay shirkadan kambaniga Some Fresh marka maalintii waxaan ka qaataa 200 oo muus aan ka qaataa meel baa ii furan oo maqaayada waa ku ganacsadaa
marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin macnaha shirkadda noo soo saalisay mooskan oo wanaagsan oo aad u quruxda badan oo jaallaha ah Somali doinay hore mawsuuna mas'aba mantiyo israad kunoo